السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan qaadanaynaa maanta alwuxdatu athaaniya waa wuxdadii amaba cutubkii labaad waana cashirkeenihii labaad weeye darsigeenii labaad. al-usra usradu waa qoyska. alwuxdatu athaaniya waa wuxdadii amaba cutubkii labaad. alcardu waa bandhig. addarsu asaabic waa casharkii toddobaad. alxiwaaru alawal waa wada sheekaysigii koowaad. undur fiiri wastamic dhegeyso wa acid ku celi. xiwaarun bayna caliyin wa camaar casharkani waa wada sheekaysi udhexeeya labada wiil midna la yidhahdo cali midna la yidhahdo camaar. cali wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato. camaar wacalaykum assalaam nabadgelyo korkiina ha ahaato. cali haadihi tani suuratu usrati waa qoyskayga sawirkiisii weeye. camaar wuxuu yidhi maa sha allah. camaar wuxuu yidhi man haadaa kani waa kuma. cali wuxuu yidhi haadaa kani waalidii waa aabahay cadnaan. aabahay cadnaan weye huwa muhandisun waa injineer. camaar wuxuu yidhi waman haadihi tana waa tuma. cali wuxuu yidhi haadihi tani waalidatii waa hooyaday saciida. hooyaday saciida weye hiya iyadu dabiibatun waa dhakhtarad. camaar wuxuu yidhi waman haadaa kana muxuu yahay kani waa kuma. kana cali wuxuu yidhi haadaa kani akhi waa walaalkay ciisa. walaalkay ciise weye huwa daalibun waa arday. camaar wuxuu yidhi waman haadihi tana waa tuma. cali wuxuu yidhi haadihi tani ukhtii waa walaashay cabla. walaashay cablo weye hiya iyadu mucalimatun waa macalimad. wahaadaa kana jaddii waa awowgay. wahaadihi tana jaddatii waa ayeeday. camaar wuxuu yidhi maa sha allah. alwuxdatu athaaniya waa cutubkii labaad. alxiwaaru athaani waa wada sheekaysigii labaad ee cutubka labaad. undur fiiri wastamic dhegeyso wa acid ku celi. cumar iyo cuthmaan ayaa meeshan ku sheekaysanaya. cumar wuxuu yidhi hal haadihi tani shajaratun geed miya waxaani geed miya. cuthmaan wuxuu yidhi nacam haa haadihi tani shajaratun waa geed. haadihi tani usratu rasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulkeena naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waa qoyskiisii weeye. geedani waa qoyskii rasuulka ayaa ku sawiran. cumar wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam sala allahu calayhi ilaahay ha ammaano oo wasalama ha badbaadiyo. cuthmaan wuxuu yidhi haadaa kani waaliduhu cabdallah. kani waa aabihii cabdallah nabiga aabihii cabdalla weeye. cumar wuxuu yidhi wahaadihi tana waalidatuhu waa hooyadii aamina. cuthmaan wuxuu yidhi wahaadaa kana jadduhu waa awowgii cabdallah. waa awowgii cabdullah cabdulmudalib baan leeyahay. wahaadaa kana jadduhu waa awowgii cabdulmudalib. cumar wuxuu yidhi wahaadaa kana camuhu waa adeerkii alcabaas. adeerkii cabaas weeye. cuthmaan wuxuu yidhi wahaadaa kana camuhu xamza waa adeerkii xamze. cumar wuxuu yidhi wahaadihi tana camatuhu waa eedadii safiya. wahaadaa kana ibnuhu wiilkiisii weeye alqaasim wiilkiisii qaasim. wahaadaa kana ibnuhu wiilkiisii weeye cabdallah wiilkiisii cabdallah. caruurtan waxaa dhalay cabdulmudalib waaya. cuthmaan wuxuu yihi wahaadaa kana ibnuhu waa nabiga wiilkiisii ibraahim. cumar wuxuu yihi wahaadihi tana ibnatuhu waa nabiga gabadhiisii faatima. cuthmaan wuxuu yihi wahaadihi tana ibnatuhu waa gabadhii nebiga ruqiya. gabadhii nebiga la odhan jiray ruqiya. wahaadihi tana zaynab gabadhiisii zaynab weeye. nabiga sal ly slam gabadhii u dhalay la odhan jiray zaynab weeye. cumar wuxuu yihi wahaadihi tana ibnatuhu waa gabadhiisii umu kalthum. gabadhiisii umu kalthum la odhan jiray. marka geedan waxaa ku sawiran qoyskii rasuulka ayaa ku sawiran. marka jiridda ayaa laga soo bilaabayaa amaba meesha u hooseysa. haashim
hashim yuu dhalay. hashim muxuu dhalay cabdallah. hashim geedan wax ka farcamay ma jiraan, amaba kuma uusan soo sawirin wax ka farcamay. okay, hashim maxaa loo socdaa? nebigaa loo socdaa. waxaa la rabaa hashim yuu dhalay cabdallah. cabdallahna yuu dhalay, waxaan leeyahay cabdimudalib buu dhalay. cabdimudalibna yuu dhalay cabdallah. cabdallahna wuxuu dhalay maxamed. markaa nebigu muxuu yahay? waa maxamed ibnu cabdullaahi ibnu cabdimudalib ibnu hashim. okay, haddaba cabdimudalib haddii aan u nimaadno, cabdimudalib yaa ka farcamay. waxaa ka farcamay laamahan. xamze ayuu dhalay cabdimudalib. wuxuu kaloo dhalay cabaas. wuxuu kaloo dhalay cabdimudalib. laantana isagay ka farcantay waa abu aalib. waa adeerkii nebiga ee difaaci jiray weeye. waxaa kaloo cabdimudalib ka farcamay safiya. okay, waxaa kaloo ka farcamay cabdallah ama cabdullaahi oo ah kii nebiga dhalay. cabdimudalib markaa wuxuu dhalay shantan ba isagaa dhalay. cabdallah isagaa dhalay oo nebiga aabishiisa. abu aalib isagaa dhalay oo nebiga adeerkiisa. cabaas isagaa dhalay oo nebiga adeerkiisa. xamse isagaa dhalay oo nebiga adeerkiisa. safiya isagaa dhalay oo nebiga eedadiisa. okay, mataqaanaay maxaa kale oo mataqaanaay aan u nimaadno maxamed. maxamed isaga maxaa ka farcamay? maxamed waxaa ka farcamay 7 laan baa ka farcamay. laanta koowaad waa qaasim oo nebiga wiilkiisiya. cabdallah oo nebiga wiilkiisiya. ibrahim oo nebiga wiilkiisiya. faadima oo gabadhiisiya. ruqiya oo gabadhiisiya. zaynab oo gabadhiisiya. umu kalthum oo gabadhiisiya. 7daas laamood ayaa nebiga ka farcamay. caruurtiisu waa 7da. tana waa hooyadii nebiga, hooyadii oo aamina oo isaga ayaa ka farcamay. marka nebiga waxaa baratay caruurtiisa oo 7 ah. hooyadii oo aamina la dhihi jiray. aabihii oo cabdallah la dhihi jiray. adeeradiis oo ahaa ay kamid ahaayeen cabaas iyo xamze. labadaas islaam bay ahaayeen. abu aalib oo nebiga difaaci jiray. safiya oo eedadii ahayd. cabdimudalib oo awowgii ahaa. intaas ayaad barataa. alwuxdatu thaaniya waa cutubkii labaad. alxiwaaru thalith waa wada sheekaysigii saddexaad. undur fiiri wastamic dhegeyso waa acid ku celi. alum waxay tiri haadaa kani aadaanu lfajr waa adimaadii salaada fajar ama salaada subax. alabu aabihi wuxuu yihi allahu akbar ilaahay ba weyn. allahu akbar ilaahay ba weyn. alum hooyadu waxay tiri ayna alawlaad aaway caruurtii. alab aabihi baa dhahaya ayna alawlaad aaway caruurtii. alum hooyadu waxay tiri sacdun fi lxamaam. sacad wuxuu ku jiraa musqusha ama basuuliga yatawada uu weysaysanaya. alabu aabihi wuxuu yihi wa ayna saciidun saciidna aaway. saciid xaguu jiraa? alum hooyadu waxay tiri saciidun fi lqurfa wuxuu ku jiraa qolka yaqra'u qur'aan. qur'aanka ayuu akrinaya. adiga arka isagoo qur'aanka akrinaya. alum hooyadii waxay tiri alab aabihi baa wuxuu yidhi dheh wa ayna saciida gabadha saciide la dhahaana meeday? alum hooyadu waxay tiri saciidatun gabadha saciide la dhahaa fi lmusallaa waxay ku dhex jirtaa meesha lagu tukado. tusalli way tukanaysaa. adiga arka iyadoo tukanaysa. alabu aabihi wuxuu yihi ayna almicdaf aaway koorkii? yaa sacad sacadow. sacad wuxuu yihi haadaa huwa almicdaf kani waxa weeye koorkii. yaa waalidii aabe kani waa koorkii. okay, alab aabihi baa wuxuu yihi wa ayna anadaara aaway ookiyaalihii ama muraayadihii indhuhuna? yaa saciidu saciidow. saciid wuxuu yihi haadihi tani hiya nadaara waa ookiyaalihii yaa waalidii aabe. alabu aabihi wuxuu yihi hayaa bina ina keen ila lmasjidi masaajidka aadne. sacdun wa saciidun labadii wiil waxay dhaheen hayaa bina ina mari. maanta casharkeena intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. wuxdadii labaadna halkaas ayay kusoo gabagabowday. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.